جزاك الله خيرا. سائلكني شيخنا wuxuu leeyahay waa maxay xukunka in la daawado ciyaaraha kubadda iyo waxa la mid ah. ciyaaraha kubadda daawashada la daawanayaa waa mid aan fiicnayn, waxaana ku jira waxyaalo badan oo dee markaa baatila, dad cawraadkoodii muujinaya iyo waxyaalo badan oo yacni markaa ayaa soo gelaya. dad cawraadkoodii muujinaya ayaa ka mida, lacag lagu bixinaya ka mida daawashada la daawanayo, oo iyaduna markaa xoolihii dadkoo baatil lagu cunaya ah, in xoola lagu qaataana ma bannaana. kala safashada lala kala safanayo dadka ciyaaraya ayaa markaysaga iyaduna ka mida, oo ay markaa dhacdo dadka qaarkood inay isku laayaan ama isku aflagaadeeyaan ama ay yacni markaa qaar gaalaha hadday doonaan markaysa markaa muwaalaad ay siiyaan oo ay la saftaan, ay u tacasubaan. marka waxyaalo badan oo muxaramaada ayaa markaysa markaa ay koobsanaysaa, wakhtigii ayaa ku lumaya. waxyaalihii markaa diiniga ahaa ama faralka ahaa ee qofka saaraa baa laga yaabaa inay ku dayacmaan, hadday salaada tahay iyo hadday keyrkeed tahay. saas aawadeed ruuxa muslimka ahi waa in wakhtigiisa aanu ku lumin waxyaalaha noocaasa ee munkaraadkuna ku jiraan, daawashada la daawanayo oo uu iska ilaaliyo, waana wax baatila weeye. famaada bacda alxaqi ila adalaal. جزاك الله خيرا.